maamulka iskuulka Muqdisho International macallimiinta ardayda madaxda kale ee kulankan quruxda badan ka soo qayb gashay ardayda sanadkan qalin bedelanaysa ee qaybaha kala duwan isugu jirta dhammaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaa magac weyn iyo maamuusba inoogu filan in jaamacadda Balaasma ay martigelisay markii afraad munaasabad caynkaana waxaana sidoo kale ku guwaabinaynaa iskuulka mar walba inuu ku soo laabto jaamacaddu waxay la garab taagan tahay Hiilihooba waqti walba uu soo baahdo ustaad Cawke iyo tiimka uu hogaamiyaba in jaamacaddu ay gacmo furan ku soo dhaweynayso waxaan u ballan qaadnay maalintii ugu horeeyay uu yimid halkan in jaamacaddu si bilaash ah ugu caawin doonto hoolalka jaamacadda midka u baahdo maanta marka waxaan leenahay mar kale hambaliyo waa dadaasheen wax badan ayaad qabateen bulshadana wax badan ayaad ku soo kordhiseen waayo bulshada ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ka tarjumaysa heerka iskuulka uu taagan yahay waliba waxaan si gaar ah ugu bogaadinayaa iskuulka maamulkiisa waxa uu fadhiga ka soo kiciyay hooyooyin fara badan oo isleeyahay waa naadir in guriga ay ka soo kacaan marka mar qura iskuulka saxba la siiyo inta kadib waxaan rabaa fariin gaar ah inaan la wadaago ardayda xufaada ah waxaad ogaataan quraanka marka aad xifdido waxaad heshay furihi nolosha waxaad noqotay qof irid walba oo nolosha kamid aysan ka xirmi doonin marka waxaan idinku tartansiinaynaa inaad quraanka ku dadaashaan kamira dhalidaan waayo waa furaha nolosha midda adduunyo iyo midda aakhiraba waxaan rabaa marka anigu ku hadlayaa magaca maamulka jaamacadda inaan u ballan qaado ardayga quraanka xifdiyay ee dhameysay sanadkan dugsiga sare ee Muqdisho International waxa jaamacadda ay ka qaadi doontaa ama ka qayb gali doontaa tartan quraan haddii uu kaalinta koowaad galana waxay sii doontaa kuliyadda uu rabo deeq waxbarasho oo dhameystiran waxaa taa la mid ah ardayda kaalmaha iskuulka ka gala maamulo Cawke waa ay maqlayaa horena waan uga hadalnay maamulaha wuxuu u soo qori doonaa warqad in ardayga iskuulka kaalin ka galay jaamacaddana waxay ku abaalmari doontaa taqasusko doorto inay siiso deeq waxbarasho oo dhameystiran inta kadib jaamac Balaasma waxay ka mid tahay jaamacadaha dalka ku yaala xaruntan waa xaruntii dhexe xarumo kale ayaa jira laga bilaabo Muqdisho waxay ku leedahay laba xarumood middan waa halkaan aan joogno midda labaadna waxay ku leedahay Baarubax masaajidka Nasrudiin eeriyadiisa xarunta ku soo xigta waxay ku leedahay Shabeellada Dhexe magaalada Jowhar xarunta ku xigtana waxay ku leedahay Marko Shabeellada Hoose xarunta ku xigta waxay ku leedahay Baydhaba xarunta ku xigta waxay ku leedahay Jubbooyinka magaalada Kismaayo xarunta ku xigta waxay ku leedahay Dhuusamareeb galguduud laba xarumood ay ku leedahay Dhuusamareeb iyo Guriceel markaad soo aaday goboladii dhexna waxay ku leedahay Hiiraan magaalada Beledweyne haddaba arday haddii aad Soomaalidu way taqaanaaye haddii dani ka gasho inaad gobolada kamid ah qoyskii aad ugu laabato jaamac Balaasma way kaaga horeydaa gacmo furan ay kugu soo dhaweynaysaa waxay ku leedahay ku soo dhawaaw jaamacadda Balaasma kana faa'iideyso waxbarasho tayo leh agab tayaysan macallimiin khibrad u leh waxa ay ku barayaan mustaqbal ifaya ayaan ku rajeynayaa maamulka uu sare mara waalidiintooy qiimo yeesha ardayo guuleyso mar walbana u midooba waxbarasho ayaa dad lagu la tartamaa dal lagu hagaa wax lagu noqdaa wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh